Assalaamu calaykum daawadayaal waxaan ku sugannahay jasiiradda Durayn oo kamid ah jasiiradaha gobolka Salel haatan waxay ag taagan Yaasiin Xasan Cige oo kamid ah dhalinyarada Loowi Cadda ugu horeyn Yaasiin ku soo dhawow waan dhawahay suxuf cishqi iyo TV-ga MMTV baad u dhawahay wad maasan saaxib Yaasiin waxaad kamid tahay dhalinyarada Loowi Cadda waqti xaadirkana jasiiradda Durayn baan ku sugannahay oo kamid tahay dadka yimiday bal hadda maxaad shacbiga ka bari kartaa inta aan garanayn jasiiradda Durayn iyo Loowi Caddaba horta suxuf cishqi aad baad u maasan tahay jasiiradda Durayn waa jasiirad kamid ah 7 jasiiradood ee ku yaala gobolka Salel maanta waxaan ku sugannahay jasiiradda Durayn waxaan u imanay hawlo dalxiis iyo inanka saaxiibkay oo caruusa inay tababushiintiisa gobolkan Salel 7 waxa ku taala jasiiradood oo ay kamid tahay jasiiradda maanta aan ku sugannahay Durayn jasiirad kale oo imika inaga horeyso la yiraahdo Suluqtiya xaan kale jasiirad kale inaga xigto oo la yiraahdo Musheekh jasiiradaha gobolka Salel aad bay u badan yihiin waana 7 jasiiradood mana soo koobi karno runtii dalxiis iyo wax walba aad ugu wanaagsan marka laga yimaado dhalinyarada Loowi Cadda dadka dalxiisayaasha fikir nooceey ka qaataan jasiiradaha marka ay yimaadaan horta niyo how kulli tola jasiiradu marka timaado horta degnaan awood badan waad ku dareemaysaa jasiiraduna kulli tola waa meel loo dalxiis tago oo aad u qurux badan maanta waxa la arkayso jasiiradda Durayn de kulli waa jasiirad aad u wacan oo muuqaal ahaan iyo runtii habi iyo dalxiis wacan ba leh waxa jira jasiiradooyin kale oo iyaguna la mid ah oo la halmaala oo ku yaala isla gobolka Salelun oo loo soo dalxiis tago waxaan ku boorinayaa kulli tola dalxiisayaasha iyo dhalinyarada gobolada Salel iyo Awdal iyo Somaliland inay runtii jasiiradooyinkaasi dalxiiskoodaasi ay aad uga faa'iideystaan dadku badiyaa waxay yaqaanaan marka la yiraahdo gobolka Salel jasiiradda Sacaadadiin maxaa ay Sacaadadiin uga saameyn badataan sooran karnaa jasiiradaha kale horta niyo waa jasiiradda ugu magac weyn leh ee ku taala gobolka Salel jasiiraddaasi Sacaadadiin laakiin 6 kale oo weheliya oo la halmaala ayaa jira oo gobolka kula yaala jasiiradda Sacaadadiin iyada isla laftarkeeda jasiiradda Sacaadadiin ma xuma oo waa jasiirad aad u weyn oo magaceeduna runtii populationka iyo dadka oo aad u dhaxgalay laakiin jasiirado fara badan oo waxa ku yaala gobolka Salel aad u wacan iyaga laftooda sida maanta tan aan taaganahay Durayn kuwa kale ku sheegay Abu Milix iyo Suluqtiya iyo jasiirad fara badan oo iyaguna dhowr ah oo iyaguna ku yaala aad u wacan oo loo soo dalxiis karo de waxyaabo fara badan oo kalena looga faa'iideysan karo ayaa ku yaala gobolka dadkaan garanayno ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa inay aad uga faa'iideystaan kolay dalxiis ka noqoto kolay waxyaabo kale noqoto waa jasiirado aad u wacan oo dalxiiskana aad ugu wanaagsan waa nimcad Allah ina siiyay jasiiradahan gobolka ku yaalay waa runtii waa nimcad Allah aad in looga faa'iideysto oo dhalinyarada iyo dalxiisayaashu inay aad uga faa'iideystaan baan ugu baaqayaa wad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Yaasiin Xasan Cige sidoo kale kamarada waxay naga duubayay wacays anigoo suxuf cishqi waraysiga xigan intaan ku kulmayno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala